iyadoo uu ka hadlayay madaxweynaha dalka Mareykanka barnaamijka Faith and Nation ee CBS ayuu sheegay in Masarkii uu awood qabsaday isagoo dhalinyaro oo la macaamilay dad aad u qalafsan wuxuu intaas ku daray inuu san ogeyn in kiimu maskaxan caafimaad qabo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa khaarijiyay adeerkii 2 sano kadib markii uu xilka qabtay waxaana la tuhunsan yahay inuu amray dilka walaalkiis oo isku aabahaayeen dadku waxay leeyihiin miyuu fiyow yahay ma garanayno laakiin wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo jiray 26 ilaa 27 markii uu aabihii dhintay wuxuu la macaamilay dad sida muuqata aad u qalafsan gaar ahaan generaalada isagoo dhalinyaro ayuu awood qabtay dad badan ayaa huba inay isku dayeen inay awooddaasi kala wareegaan ha noqoto adeerkii ama qof kale waxa uu suura gashay inuu awooddaasi sii hayo sida muuqata waa nin aad u xariifa ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waraysiga Trump ayaa ku soo beegmayay oo lagu guuldareystay gantaalkii labaad ee nooca balastiga ee la isku dayo in la gano 2 asbuuc gudahood gantaalka ayaa qarxay in yar kadib markii la ganay markii la weydiiyay sababta ay mar walba u qarxan gantaalaha wuxuu madaxweynaha dalka Mareykanka u yiri waxaan door bidayaa inaanan ka hadlin talaabooyinka aan qaadayo oo dhan inaan sheego ma aha waxay la mid tahay ciyaarta jarkaboodka ma doonayo in dadku ogaado waxa aan maskaxda ku hayo ayuu yiri Kuuriyada Waqooyi ayaa la rumaysan yahay inay sii wado dadaalka ay ku sii xoojinayso madaxyada hubka nuclear-ka ee ku rakibayso gantaalaha ridada dheer ee awooda inay gaaraan dalka Mareykanka xiisada ayaa markii dambe ku xoogaysatay gobolka iyadoo labada Kuuriya ay sameeyeen dowlatus military Mareykanku waxa uu gobolka u diray maraakiib dagaal waxa uu bilaabay inuu Kuuriyada koonfureed ku ragibo hanaanka lidka gantaalaha ee muranku ka taagan yahay wakaalada wararka ee ku hadasha afka dawladda Kuuriyada Waqooyi KCNA ayaa qormo ay faafisay lagu sheegay in Mareykanku ka fiirsado cawaaqibka baan ee ka dhalan kara daandaansiga military ee nacasnimada ah Kuuriyada Waqooyi waxay bilihii u dambeeyay qaaday talaabooyin ay ku tijaabinayso gantaalo isdaba joog ah waxaana imika ku hanjabaysaa in ay sameynayso tijaabadii 6 oo nuclear ah Maxamed Ali Hon Cable TV magaalada Hargeysa